waxaana wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkani waa bandhigga TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay doorashada guddoonka aqalka sare oo maanta lagu kala baxay madaxweyne Farmaajo oo uu soo gaaray jab siyaasadeed kadib guushii senator Cabdi Xaashi iyo qorshihii filla Soomaaliya oo fashilmay haddaba rajo noocee ah ayuu madaxweyne Farmaajo berri ka leeyahay doorashada guddoonka golaha shacabka maxay mucaaradku ka yiraahdeen guusha ay ka soo hooyeen doorashada guddoonka aqalka sare xilli ay soo bandhigeen awoodooda qodobada kale waxaa ka mid ah maxaa ka jira in ciidamo taageersan madaxweyne Farmaajo ay la wareegeen xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa iyo digniin adag oo loo diray xogayaha golaha shacabka oo maanta isku dayay inuu kaararka aqoonsiga siiyo xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada Ceelwaaq gudoomiyaha doorashada guddoonka golaha shacabka oo sharaxaad ka bixiyay wixii maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka ayaan idiin soo gudbin doonaa ra'iisul wasaare Roblana waxa uu bixiyay xog sir ah oo uu ka hayay madaxweyne Farmaajo taas oo dhaawacaysa dib u doorashada madaxweynaha iyo Villa Soomaaliya oo ka shalaynaysa magacaabistii ra'iisul wasaare Roble iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo sheegay inay ka cabsi qabaan in berri loo diido inay tagaan afisioni oo ay doorasho ka dhacayso qodobadaas ayaad ku daawan doontaan wararka bandhigga TV daawadayaal haddii aad inagu cusub tihiin ku soo biira shabakadan idinkoo subscribe saaranaya muuqaaladeennana sii gudbinaya oo la sii wadaagaya saaxiibadiina kale ee idinkugu jira baraha bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ku soo dhowaada qodobadaas oo faahfaahsan doorashada guddoonka ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta ahayd mid aad u xiiso badan isla markaana si weyn isha loogu hayay ayaa waxay noqotay mid markaasi guuldarrooyin isxigxiga uu kala kulmo madaxweyne Farmaajo oo isagu markaasi xubno uu watay ay ka qaybgalayeen ee tartanka doorashada guddoonka aqalka sare oo maanta ka qabsoontay teendhada afisioni ee xarunta xerada Xalane ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaana markaasi ka soo qayb galay markaasi mas'uuliyiin kala duwan iyadoo sidoo kale ay goobta markaa ku sugnaayeen xubnaha markaasi ee tartanka ka qayb galayay sidoo kale waxa amniga si weyn u sugayay ciidamada ATMIS ee iyagu halkaasi fariisimaha ee kule doorashada ayaana markaasi waxa ugu horeyn lagu dhaariyay inta aan doorashada la gudagelin xubno markaasi ka mid ah senatarada aqalka sare oo aan horay loo dhaarinta kadib ayaa la gudagalay doorashada guddoonka markaasi aqalka sare waxaana ugu horeyn tartanka markaasi lagu bilaabay gudoomiyaha aqalka sare doorashadiisa waxaana isu soo taagay xilkaasi senator Cabdi Xaashi senator Dubbe iyo sidoo kale senator Saalax waxaana mar kale loo doortay xilkaasi gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka Cabdi Xaashi oo si weyn madaxweyne Farmaajo uga soo horjeeday sanadihii u dambeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan teendhada afisioni waxaa maanta lagu qabtay doorashada gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya taasi oo ay ku tartameen ilaa iyo 3 murashaxiinta loolamay ayaa kala ah Cabdi Xaashi Cabdilaahi Saalax Axmed Jaamac iyo Cismaan Abuukar Dubbe oo dhammaantood ka soo jeeda gobolada waqooyi doorashada oo ahayd mid xasaasi ah ayaa waxaa codadkooda dhiibtay ilaa iyo 54 senatar oo uu markaa ka kooban yahay aqalka sare waxaana guushu ay raacday Cabdi Xaashi sida uu shaaciyay gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee golaha aqalka sare waxa uu mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi helay 28 cod murashax Saalax Axmed Jaamac ayaa isna helay 24 cod halka wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dubbe uu helay codkiisa iyo mid kale taasoo ka dhigan in guud ahaan 2 cod oo kaliya uu helay Dubbe Cabdi Xaashi ayaa mar kale 4 sano soo socota hogaaminaya golaha aqalka sare ee Soomaaliya isagoo 5 sano la soo dhaafay ahaa gudoomiyaha golahan ninkan oo ka mid ah rugcadayaasha siyaasadeed ee ka soo jeeda gobolada waqooyi ayaa lagu xasuustaa dagaalkii siyaasadeed ee uu horay ula galay Villa Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guusha Cabdi Xaashi ayaa dhabar jab ku ah kooxda Villa Soomaaliya waxaana dhinaca kale guul siyaasadeed ay u tahay kooxda Roble iyo mucaaradka oo soo dhaweeyay guushiisa sidoo kale doorashada ayaa waxa ay tahay mid markaasi aad maanta loola socday dhinaca kale waxaa la qabtay doorashada gudoomiye ku-xigeenka ee koobaad ee aqalka sare waxaana loo doortay shakhsi aanan weli la fahamsanayn halka siyaasad ahaan uu jiro inkastoo la reebay murashaxii ay wadatay Villa Soomaaliya teendhada afisioni oo maanta ay ka soconayso doorashada aqalka sare baarlamaanka ayaa waxa markaasi lagu kala baxay goor sii horeysay kursiga gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim ayaa ku guuleystay kursiga gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna helay codad markaasi gaaraya 28 cod Cali Shacbaan ayaa doorashadan kaga adkaaday Cabdixakiin Macalin Axmed oo kula tartamayay kursigaas kaasi oo helay codad gaaraya 25 cod gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee aqalka sare
ayaa ku dhawaaqay natiijada tartanka waxaana la sheegay in uu xumaaday hal cod. sidoo kale waxaa goor sii horeysay markaasi la shaaciyey in doorashada markii hore dhacday ee Cali Shacbaan iyo Cabdixakiin ay ahayd mid markaasi ku celisa maadaama cod ka mida uu halaabay xubnahana ay aad isugu dhawaadeen isla markaana hal cod oo kaliya isdheeraadeen kaasi oo noqday mid markaasi halaabay. haddaba arrintan ayaa waxay ka dhigan tahay in doorashadii guddoonka aqalka sare maanta qabsoontay ay markaasi si weyn ugu jabeen villa Soomaaliya oo hadda ka fakaraysa waxa ay markaasi samayn doonto ama tallaabada ay qaadi doonto maadaama natiijadan la arkay birina la filan karo in markaasi jabka villa Soomaaliya ay wajahdo. geesta kale golaha midowga murashaxiinta ayaa waxa ay war ka soo saareen doorashada guddoonka aqalka sare waxayna hambali u direen Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo mar kale loo doortay gudoomiyaha aqalka sare waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin. midowga murashaxiintu waxa uu hambaliyo u dirayaa senator Cabdi Xaashi oo ku guuleystay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda 2022-2026 ayaa lagu yiri war kooban oo ka soo baxay golaha midowga murashaxiinta. murashaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale sheegay in Cabdi Xaashi uu dibdhexaad u ahaa halgankii looga hor yimid muddo kororsigii 2 sano ahaa ee uu samaystay Farmaajo kaasi oo markaasi guul daraystay. waxayna golaha u rajeeyeen Cabdi Xaashi in hawsha loo igmaday uu u guto si waafaqsan dastuurka dalka iyo sidoo kale danta qaranka. hagaag intaas haddii aynu kaga nimaano ka sheekaynta doorashada guddoonka aqalka sare waxaynu markaan eegaynaa villa Soomaaliya oo maanta ciidamo badan geysay villa Hargeysa sidoo kalena la wareegtay halkaas iyada oo soo ceyrisay shaqaalihii baarlamaanka iyo guddiga doorashada oo halkaasi maanta gaaray. wararkaynu ka helayno xarunta villa Hargeysa ayaa sheegaya in halkaasi ciidamo fara badan oo taabacsan madaxweyne Farmaajo ay tageen isla markaana ay kala eriyeen xubnihii shaqaalaha ee baarlamaanka. gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka xildhibaan Cabdirasaaq Cumar oo markaasi ka hadlay dhacdadan ayaa waxa uu sheegay in taliyaha ciidamada booliiska iyo askar ka socota villa Soomaaliya ay xoog ku galeen villa Hargeysa ayna ka saareen shaqaalihii iyo guddiga ee ku howlana doorashada. xildhibaan Cabdirasaaq Cumar ayaa tallaabadan ku macneeyay mid lagu hor istaagayo doorashada guddoonka golaha shacabka isla markaasna lagu cabsi gelinayo howlwadeennada iyo guddiyada diyaarinaya doorashadaasi sida uu hadalka markaasi u dhigay. waxa uu yiri ujeedka ayaa ah in dib loo dhigo ama la joojiyo doorashada gudoomiyaha iyo ku-xigeenada golaha shacabka lana cabsi geliyo shaqaalaha si ay uga markaasi ugu dhaganuglaadaan rabitaanka villa Soomaaliya. si kastaba ahaatee guddiga u xil saaran howlaha doorashada ayaa soo gebagabeeyey howlahooda ku aadan doorashada biri ayuu markaasi warkiisa ku yiri xildhibaankan. sidoo kale waxa uu sheegay in markaasi ay jiraan qorshayaal kale oo u diyaarsan villa Soomaaliya oo ay ka mid yihiin in markaasi maalinta biritaa ay soristaag ku sameeyaan xildhibaanada doonaya inay ka qayb galaan doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. waxa uu sheegay inay jiraan damacyo ku aadan in ciidamo fara badan lasoo dhoobo wadooyinka gala afisyooni si markaa soristaag loogu sameeyo xildhibaanada golaha shacabka. waxa uu intaasi ku daray in markaa si gaara loo bartilmaameedsan karo xildhibaanada 16 ah. waxa uu tilmaamay in xildhibaanadaasi ay yihiin kuwo markaasi xaq u leh in ay codeeyaan isla markaana doorashada guddoonka golaha shacabka ay markaasi ka qayb galaan. si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan balse xaaladda ayaa mid cakiran waxaana uga sii daray doorashada xubnaha ee ka soo baxay ceel waaq biri ayaana loo fadhiyaa sida markaasi ay wax noqon karaan iyo halka markaa xaaladdu ay ku dambayn karto iyada oo doorashadaasi ay tahay mid ka xasaasisan midii maanta dhacday. ugu dambayntiina ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu markaasi weerar ku qaaday Farmaajo. Roble ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan dooneynin in doorasho la qabto sidoo kalena arrimahan uu isagu markaasi ka hortagay. ra'iisul wasaaraha oo ka sheekeeyay marxaladaha kala duwan ee soo martay doorashada ayaa sheegay in gudoomiyaasha imaan doona looga baahan yahay inay ilaaliyaan shuruucda dalka iyo ku dhaqanka dastuurka isagoo la hadlayay gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. sidoo kale waxa uu sheegay in uu dhowr jeer iska diiday dalabyo uu markaasi u soo jeediyey madaxweyne Farmaajo kaasi oo ku saabsan in uu markaasi ka mid noqdo xubno taageersan madaxweyne Farmaajo oo ka qayb qaata in doorashada la daahiyo amaba doorasho inaanan la aadin. sidoo kale waxa uu ka dalbaday dadka Soomaaliyeed inay garab istaagaan guddoonka cusub ayna u duceeyaan in uu alla markaasi u fududeeyo si dalka loo badbaadiyo. hadalkan ayaa ku soo aadayay iyadoo maanta la qabtay doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya
berrina loo madalsan yahay midda golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah intaanu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo.